marka no commonly spoken language is fixed ma jirto luqad loo gaar yeelay naxwo loo gaar yeelay ma jirto ilaa luqad kasta waa in ma aragtay maxaa la yiraahdaa iyada ay ma aragtay dadkeeda ay aqoon-yahanadeeda ay ka soo saaraan research dabeetana ay qoraan yani naxwaha indexkiisii la qoro dabeetana dadkii loo gudbiyo oo ay bartaan oo uu noqdo manhaj iskuulada iyo meelaha lagu barto laguna baraarujiyo dadka all languages luqadaha marka change over time way isbedbedelayaan sida yani ereyada Soomaaliga waad aragtaan erey cusub baa ku soo kordhay way isbedbedelayaan marka waxa muhiimad ah oo aan focuska dadku ay saaraan what we call grammarka in maxanaha waxaynu grammarka ugu yeerno in yani focuska ay saaraan naxwiga what we call grammar muxuu yahay is a simple reflection of a language wa xulasho laga soo xulayo luqad at a particular time habka ama hadalka markaas dhacaya ee dhacda falka ahi sidoo yahay tusaale yani hadalku dadka ay ku hadlayaan wuxuu ka tarjumayaa dhacda fal ama tenses waxa la yiraahdo ay ka tarjumayaan kaas ayaa wuxuu noqon doonaa reflection of particular time ayuu noqon doonaa reflection of particular time ayuu noqon doonaa ma u baahan tahay naxwo inaad barato do we need to study grammar to learn a language ma u baahan nahay inaynu naxwo barano si aynu luqad dad kale ay leeyihiin ama luqad aynu u barano the short answer is no jawaabta yar waa no maya ma u baahan inaynu barano the short answer is no do we need to study grammar to learn a language ma u baahan inaynu barano naxwo si aynu u barano luqad dad ay leeyihiin oo aan luqadanada ahayn the short answer is no jawaabta yar waxay tahay no maya ma u baahan very many people also hadalkan la soo hadal baa ku xiga very many people aad dad badan baa in the world adduunka speak their own luqadooda ay ku hadlaan native language waa luqada iyaga ay u dhasheen ay ku hadlaan without having studied ayagoona baranin its grammar naxwaheeda ayadoona baran Soomaaliga hadda naxwiisa yani cid ku hadashaa ma jirto Ingiriisiga sidoo kale cid ku hadashaa ma jirto inta badan waay very many people in the world speak their own language or the native language that having studied its grammar ayagoona focus ka saarin ee aan baranin naxwo ay waxaan loo joogin because luqadu waa tii ay u dhasheen adiga baranay laakiin focuska waxa laga doonayaa si aad luqadooda u barato inaad luqada si aad u barato inaad barato structure of the language dhismihii luqada oo naxwaha inaad baratid jaldare marka caruurta start way bilaawaan to speak inay hadlaan before ka hor they even know the way intayna ba aysan ogeyn oo aysan aqoon u lahayn grammar muxuu yahay markay dhashaan way ku hadli but laakiinse if you are serious about learning a foreign language haddii ay dhab ka tahay inaad barato luqad dad kale ay leeyihiin but laakiinse if haddii you are serious ee dhab ka tahay about learning inaad barato a foreign language luqad dad ay leeyihiin the long answer is yes jawaabta ugu muhiimsan ama jawaabta qaaxisteedu dheer tahay waa yes ha waad baran kartaa si aad u barato luqad dad kale ay leeyihiin aas-aaska baro ee naxwaha grammar marka kan helbi wuxuu ka caawin karaa tuleen inaad barato a language luqad more quickly yani si dhaqso leh inaad u barato and more efficiently iyo si maaragtay rasmi ah waxaan uga jeedaa si dadaalkeeduna uu yar yahay inaad u barato adigoona dadaal dheer heerkaasi aanad u galin naxwaha li focuska aad saarto waana hadalka iyo meelaha dadka iskuulada maartay inta badan Soomaalida iskuuladooda waxa lagu dhigaa conversationist or conversationist ayaa lagu dhigaa dialogue oo macaanka soo xulay oo cinwaan loo saaray sabuurada ardayda ayaa loo dhigaa oo ardayga xifdinaya ardaygana naxwaha sida kuma baran karo
ma ku baran karo luqad dad ay leeyihiin sidaas waa inuu focus ka saaraan naxwaha. It is important waa muhiim to think of grammar naxwaha in laga fikiro maxaa looga fikirayaa something sida inuu yahay that can help you inuu ku caawin karo like a friend sida saaxiib. When goorta you understand the grammar naxwaha aad fahantid oo the system habka of a language luqadda way tahay you can understand waad fahmi kartaa many things ashyaa badan yourself nafsad ahaantaada without having adigoonan maaragtay aanad noqonin without having adigoonan noqon to ask mid weydiiya a teacher macalinka or ama look in a book ama book ka eegaya tan hadda ka hadlayay Soomaa conversationska maaragtay ardayda ay ku qaataan maxaa la yiraahdaa iskuulada buugaag baa looga qoraa hadda maxaa lagu leeyahay when you understand the grammar or the system of language you can understand many things yourself without having to ask a teacher or look in a book. adoonan eegin book ayaad hadli kartaa waad icraabi kartaa waad dhisi kartaa dulucda waa halkaas.